بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا channelka Mustafa Xareed halkan waxaan kusoo gudbinaa aqoon kororsi joogto ah waxaan dhamaynay koorsadii financial accounting 29 cashir qofka u baahan cashiradan taxana weeye waxa uu nagtay karaa qaybta playlistiga kadibna waxa weeyaan 29 cashir oo taxana ah ayuu meesha ka heli karaa waxaan ka hadalnay isbuucii la soo dhaafay softwarada accountingka noocyada ay u kala baxaan qaabkay yihiin tobanka software ee lead garaynayso hogaaminayso ee loogu isticmaal badan yahay shirkadaha caalamka kadib waxaan idin ballan qaaday in aan idin la wadaagi doono software bilaash ah oo dhammaan ardayda ama shirkadaha yaryar aan dhahno ay ka faa'iideysan karaan shirkad walba oo rabto in ay software isticmaasho oo ay record garayso dhammaan transactionada ganacsigeeda ay isticmaali karto waa free weeye waxaana qof walbana waa uu soo dejisan karaa inta aynan gudagelin taas waxaan idinku bishaaraynayaa dhammaan ardayda Soomaaliyeed in website la sameeyay share xirfad la dhaho halkani waa website kulminayso dadka wax doonaya inay bartaan iyo dadka raba inay wax baraan marka website-kan shicaarkiisu waxa weeyaan baro xirfad ama bar meeshan waxaan dhammaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan ardayda Soomaaliyeed iyo dadka danaynaya in ay ardayda Soomaaliyeed la wadaagaan xirfadaha ay soo barteen website-ka waxaa hadda isdiiwaan geliyay arday gaarayo 300 oo arday waxaa farxad noo ah inaad website-ka soo booqato oona nagala soo xiriirto nambarka WhatsApp-ka ama email-ka adiga oo qaybta footer-ka marka aad tagto ka heli karo dhammaan social media-ha uu website-kan leeyahay gacmo furan ku soo dhawaada maanta waxaan idinla wadaagayaa software bilaash ah softwareadii aan horay uga hadalnay dhammaan waxay ahaayeen software u baahan qofka in uu subscription sameeyo uu lacag bixiyo bishii software-kan laba nooc weeye manager aan ku tilmaamnay linkiga waxaan idin dhigayaa qaybta description-ka ayaan idin dhigayaa waxa uu qofka google-ka intuu tago ayuu manager.io marka waxa weeyaan waxa ku soo baxayso safxada ay qoladan leeyihiin qoladan manager software waxa ay leeyihiin laba qaybood qayb desktop ah iyo qayb edition cloud edition ah wax marka isbarbardhigooda aad rabto inaad fiiriso qaybna lacag weeye qaybna free qaybta freega waa desktop edition waa free desktop editionka waa free qaybta cloud editionka ayaa lacag ah maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin meesha laga gaaro tan afaraad ilaa iyo dhammaan marka miisada marka aad gadato aad helayso waa maxay inaad tablet u isticmaali karto inaad phone u isticmaali karto haddii shirkadaada yar tahay ma danaynaysid waxaa kugu filan inaad computerka ku soo dejisan karto dhammaan accounting feature-ka oo aad u baahanto oo dhan aad heli karto marka dadka waxaan kula talin lahaa ardayda ama shirkadaha yaryar ee u baahan shirkadaha u baahan software bilaash ah waa software-ka ugu fiican ee bilaash dhammaan waxa weeyaan forever ayaad isticmaalaysaa full featured weeye wax walba oo accounting uga baahneed ayaad ka helaysaa full featured accounting forever isbuuc laba isbuuc ma aha forever weeye waxa uu ka fiican yahay offline ku shaqeynaya hadda soo dejisato ala tool ayaad isticmaali kartaa aanu imaano sidee baan u soo dejin karaa software-kan waxaad tagaysaa qaybtan free download-ka ayaad ku dhufanaysaa waxa kuu soo baxayo 3 option ayaa kuu soo baxayo qaybta Windows-ka qaybta Mac-ga qaybta Linux waxa aan hadaad isticmaalayso Windows-ka waxaad kan ayaa meeshan ayaa taabanaysaa Mac waa maxay Mac waa tele kombiyuutaradan ama laptopadan ay soo saarto shirkadda Apple marka aniga kombiyuutarkan isticmaalayo waxa uu ku shaqeeyaa Windows waxaan ku dhufanayaa free download ayaan ku dhufanaya marka aan soo ku dhufto waxa ii soo baxayso in uu bilaabay inuu soo dejiyo waa 86 megabyte weeye waan sugayaa inta uu ka dhamaanayo soo dejinta
haddii internetkaaga uu yahay internet sariica fast ah waxa weeyaan uma baahnaanaysid seconds unbaad u baahan tahay hadda waa diyaar uu soo degay marka aad kombyuutarka ku soo dejiso laba option ayaad haysataa inaad meeshan ku dhufato cala tuul click aad inta dhahdo ama inaad qaybta downloadka aad tagto oo wixii ugu dambeeyey ee aad soo dejisay aad ku dhufato marka aad ku dhufato qaybtaasi waxa uu ku siinayaa optionna ah in aad steps aad samayso waxaad leedahay next kadibna next ha isdhibin install dheh kadib wax yar kadib waxa uu ku siinayaa option ah in lagu soo install gareeye finish ayuu ku leeyahay finish buttonka taabo kadib waxaad aadaysaa desktopka computerkaaga markaad aada waxaa kuu soo baxayo iconkii ama calaamadii barnaamijkaasi oo ah manager m cad ku dhex jirto meel guduudan ayada unbaa double click ku samaynaysaa marka aad double click ku samaysa waxaa kuu soo baxayo softwarekii safxadii softwareka waxaa kuu soo baxaya meeshan qaybta businesska waa meel eber ah oo rabto empty weeye waxay rabtaa in aad shaqada bilowdo userska waxaan iri qaybta dadka desktop editionka leh ma helayaan in more than one user isticmaalaan yani ma u samayn kartid user dad kale yani kombiyuutarro badan lagama soo geli karo lianno waxaan iri qaybta lacagta ayaa optionkaasi leh marka waxaan leenahay add business hadda waxaa muhiim noo ah in aan create garayno businesska aan rabno in aan diiwaan gelino ama aan recordingka aan samayno laba option markaad add business dhahdo laba option ayaad helaysaa create new business ama import business create new business iyo import business maxay ku kala duwan yihiin create waa hadda ayaad aasaasaysaa waxa weeyaan wax cusub weeye import business waxaad isticmaali jirtay software accounting waxaad rabtaa lacagtii baad bixin kari weysay mid baad sanad walbaba $50 baad bixin jirtay ama bil walbaba aan dhahno waxa aad kharashaadkii baad ka bixi kari weysay waxaad rabtaa daatadii meesha ku jirtay inaad freegan ku soo wareegto kadib markii aad ka aragtay channelka Mustafa Xareed inuu jiro software accounting free ah marka import businesska unbaad dhahaysaa kadibna steebyadii unba ayaad sii wadaysaa right now marka annaga waxaan leenahay create new business cusub iyo bilow magaca businesska waxa aan ku tilmaamaynaa مثلا Mustafa Xareed qaybta kabitaalka Mustafa company tusaale ahaan waxaad qoraynaa Mustafa company kadib waxaan leenahay create countryga waa dooranaysaa hadduu countryga ku jiro ama automatic ayaad u daynaysaa create new business ayaad leedahay marka create new business marka aad dhahdo kadib waxaa kuu soo baxayo safxadan ayaa kuu soo baxayso safxadan laba ayay u qaybsan tahay qaybtan bidix ee ka soo baxayso 4 taab iyo tan hoose iyo qaybtan kale marka maxay ku kala duwan yihiin qaybtan waxa weeyaan meesha aad sida very quickly aad taabyada uga tagi karto summary-ga journal entry-ga report-yada setting-ka aad rabta in aad wax ka badbadasho summary-ga waxa ku soo baxayo meeshan laba report-yadii aan soo qaadanay cashiradii koorsadii financial accounting-ka waxaan nidhi warbixinada la diyaariyay waxa kamid ah balance sheet ama financial position waxa weeyaan inta ayay ku soo baxaysaa BL ama waxaan nidhi income statement ama profit and loss statement dadka qaarkoodna waxay ku soo koobaan marka مثلا BL unbaa lagu soo koobaa okay now aan samayno aan isla dejino settingkaas qaybta settingka intaan tagno aan set up aan samayno waxyaalahaad u baahan tahay in aad xadido haddii aad summary-ga fiiriso calaamadan eberada ama hadhow marka aad wax diiwaan gelisa ayay meeshan ka soo bixi doontaa nambarada markii aad wax diiwaan gelisa kadib laakiin ma cadda calaamada ama nooca aad isticmaalayso lacagta aad isticmaalayso marka sifa aad u xadayso waxaad leedahay settingka tagaysaa qaybta base currency-ga ayaad dooranaysaa meeshan marka waxaad gelinaysaa waa maxay lacagta aasaasiga ah ee shirkadaadu isticmaasho tusaale ahaan aan dhahno waxaan isticmaalnaa lacagta US dollarkaan isticmaalnaa magacu waa US dollar kadibna waxaan leenahay calaamada waa nooce calaamada dollarka ee caanka ah ayaan gelinaynaa kadib waxaan leenahay wax ma rabno wax decimals wax eber nooga dhig kadib update ayaan leenahay
haddii aan samariga ku laabanno waxaa soo baxaysa hadda waxaa kuu soo baxaysa calaamadda lacagta aad isticmaalayso si automatically ah marka meesha laga maamulo waa qaybta settingka ayaad ka maamulaysaa softwarekaaga bal ka waran macalin haddii magaca businesskayga aan raba inaan bedelo oo meesha aan Mustafa company aan ka dhahayo aan dhaho Xareed company tusaale ahaan qaybtan renamedka ayaad imaanaysaa kadibna magacii Mustafa ayaad bedelaysaa oo waxaad ku bedelaysaa Xareed company ayaad ku bedelaysaa magaca laaliya magaca aad rabto ayaad diiwaan gelinaysaa okay inta waan isla fahanay lacagtii waan sameynay magacii businesska waan u sameynay waan bedelnay maxaa kaloon u baahannahay haddii aad rabto weli settingka qaybta settingka ayaad tagaysaa markaas waxaad ka fikiraysaa tolow businesskaygu ma wuxuu isticmaalaa hal currency mise foreign currency lacaga kale oo currency miya aan isticmaalo miyaa jirto haddii ay jirto waa diiwaan gelin kartaa softwareka waa diiwaan gelin kartaa sifa mar walba oo recording aad u samaynayso meeshii aad ka yani haddii aad isticmaalayso tusaale ahaan laba lacagood oo kala duwan waa in aad optionada heli karto sifa aad optionada u hesho marka waa inaad qaybta settingka aad ka soo set garaysaa marka qaybtan ayaad imaanaysaa foreign currencies lacagaha qalaad weeye marka new foreign currencies aad leedahay koodhka مثلا tusaale ahaan waxaan dhahaynaa lacagtan waa QAR oo lacagta riyaalka qadariga مثلا tusaale ahaan riyaal ayaan leenahay calaamadiisa QAR baan u daynaynaa decimals daa'iman uma baahnin eber baan leenahay kadib waxa uu ku siinayaa waa maxay reedka halka dollar meequu u dhigmaa halka dollar tusaale ahaan wuxuu u dhigmaa 3.65 aan dhahno tusaale ahaan ayuu u dhigmaa marka aad diiwaan geliso mar walba oo aad wax diiwaan gelinayso ood rabto in aad kala saarto diiwaan gelintan ma riyaal qadari ba mise US optionka uu ku soo baxayaa markaad meeshan ku set garayso macallin waxaan rabaa in aan business detailkayga ay ka soo baxdo dhammaan invoice-yada aan soo saarayno qaybtan business detailska ayaad imaanaysaa kadib magacii shirkadda ayaad diiwaan gelinaysaa مثلا tusaale ahaan Xareed company ayaad soo gelinaysaa Xareed company xaguu jooga wuxuu joogaa tusaale ahaan Bakaaro ayuu joogaa مثلا Bakaaro ayuu joogaa Bakaaro xagee ku taala Muqdisho ayay ku taala caalamka مثلا addressyada marka la isticmaalayo street number iyo zone number iyo waxbaa la geliyaa marka hadda anaga tusaale ahaan waxaan gelinaynaa xaafadaha iyo magaalooyinka Muqdisho xagee ku taala Soomaaliya ku taala Muqdisho Soomaaliya okay Soomaaliya ayay ku taala phone ma jira phone haduu jiro waad ku dari kartaa sifa hadhow dadka invoice-yadaada haday rabaan inay ku soo wacaan furuhu waa 622332233 whatever haddii aad rabto email ayaad ku dari kartaa emailkaagu waa maxay مثلا tusaale ahaan waa xareed@gmail.com waa email aan iska sameynaya hadda email jira ma aha waxba ku soo dirin kadib countryga ayaad xadidaysaa kadib waxaad leedahay update ayaad leedahay business detailka markaad geliso fursad haddii aad leedahay logo maxaa la dhahaa haddii ganacsigaaga uu leeyahay wax lagu garto astaan u ah waxa weeyaan waa soo upload gareyn kartaa qaybtan ayaad geeni kartaa sifa dhammaan ay uga soo baxaan business logo ayaad leedahay kadib waxaad leedahay choose fileka ayaad soo choose gareynaysaa kadib logadii aan soo gelino waxaa ku soo baxayo logada مثلا logadii share xirfad ayaan keenay meeshan haddii aad rabto delete ayaad dhigi kartaa mid kale ayaad keeni kartaa haddii logada aad soo gudbisay aynan ahayn tii aad rabtid tusaale ahaan markii aad intaa ka soo baxdo waxaad u imaanaysaa chart of account waa mowduuc aad iyo aad u weyn waana laf dhabarta softwarada accountingka lagu shaqeeyo waxaan idinka cudur daaranayaa in aanan videogan haddaan dhahno aan ku soo bandhigno waqtiga ayaan ugu dheeraanaya marka video kale ayaan chart of account iyo projectigii aan idin ballan qaaday labadaba aan ku sameynayna marka skip gare kadib custom fields baad samayn kartaa date number format ayaad samayn kartaa oo ah in aad dateka qaab noocee ayaad rabtaa inuu ku soo baxo tusaale ahaan meesha ay calaamadan ka soo baxayso dot u badal tusaale ahaan waxaan leenahay qaabkan ay ugu soo baxo formatka taariikhda ayaa bedeli kartaa wiiga goormuu bilowdaa wiigaagu Soomaaliya oo kale wiiga wuxuu ka bilowdaa Saturday
marka Saturday ayaan dooranaynaa number formatka qaabkee rabtaa inuu numberka kugu soo baxo siduu yahay u daa fawaasisha ha soo baxdo kadib update ayaan dhahaynaa division waxa weeyaan shirkadan Xareed Company haddii ay leedahay furuucyo ood rabto farc walbaba in aad set up garayso oo si gooni aad ula tacaamusho warbixinadooda iyo journal entrygiisa division way email setting ayaa samayn kartaa exchange rate ayaa diiwaan gelin kartaa extension footer forecast foreign currencies oo tii aan ka hadlaynay form default legacy macnaha waxa weeyaan log date marka waxa weeyaan optionno badan ayaad haysataa oo aad wada fiirin kartaa markii aad ka dhammaato dhammaan settingka qaybihii aad rabto oo dhan aad fiiriso kadib waxaad samayn kartaa inta maxaa kaaga muuqdo waxaa kaaga muuqda 4 tab wax kale ma ku soo kordhin karaa qaybta customize-kan ayaad imaan kartaa kadib waxaa ku furmanayo dhammaan xisaabaadka iyo qaybaha muhiimka ah ee software-rada accounting-ka tusaale ahaan hadda bank and cash account waxaa hoos imaanayo lacagihii la qadanayay receipts payment lacagihii la bixinayay inter account transfer lacago lagu kala xawilayo laba account oo shirkadda ay leedahay bank reconciliation iswaafajintii statementigii iswaafajinta intermediate accounting ayaa lagu qaataa koorsadii financial accounting maynan kusoo qaadan expense claims kulli haddaad tiggarayso waxa ay kasoo muuqanaysaa qaybtan ayaad kasoo muuqanaysaa kaliya sifa aad ugu darto waxaad u baahan tahay kaliya inaad click saarto kadibna si quickly ayaad u access gareyn kartaa customer wixii calaaqala lahaa dhammaan customerka oo haddii aad offer u dirayso مثلا codes waxbaad u soo bandhigaysaa kadib markaad wax u soo bandhigtay hadduu ku qanco order ayuu ku siinayaa orderkii markaad fuliso maxaad samaynaysaa invoice ayaa soo saaraysaa alaabtii ayaad u wareejinaysaa alaabta deyn hadduu kaaga qaato maxaad samaynaysaa credit note ayaad diiwaan gelinaysaa deyntii hadduu waqtigu ku bixin waayo مثلا tusaalaan late payment fee iyo wixii la mid ilaa laga gaaro delivery note oo tan cadaynaysa in alaabtii loo geeyay qaybta customerkii waaye ama wixii aan ku qaadanay haddaad xasuusataan account receivable chapter dhan ayaan kaga hadalnay haddii aad ku laabato waad heli kartaa channelkeena haddaad ku laabato qaybta playlistiga supplierka waxa weeyaan purchase code waxa weeyaan way ku soo bandhigayaan curuud ayay ku soo bandhigayaan ama offerro kadibna waa dalbanaysaa kadib waxa weeyaan invoice baa lagu siinayaa deyn haddaad ku soo qaadatay alaabtii aad qabatay project haddaad ka shaqaynayso inventorygii aad la tacaamulaysay dhammaan xisaabada muhiimka ee aad u baahan tahay accountingka ayaa meeshan kuugu jiro kaad rabto waxaad samaynaysaa kaliya click unbaad saaraysaa kadibna si directly ayay kuugu imaanayaan qaybtan ayay kuugu soo biirayaan haddii aan u laabana qaybtii summary-ga marka waxa weeyaan ilaa hadda wax transaction maynan samaynin kaliya waxa aan rabnay waxay ahayd in aan barano qaabka loo settingka loo sameeyo iyo softwareka qaabka loo soo dejiyo iyo qaabka loo isticmaalo maanta waxba ma diiwaan gelinayno videoga soo socda ayaan project isla sameynayna oon isla diiwaan gelin doonaa mawduuca ugu dambeeyo haddii aad fiiriso meeshan مثلا 5 bisha 8 2022 ilaa 5 bisha 8 2022 waxaad rabtaa in aad accounting period-kaaga aad iska hagaajiso sifa accounting period-kaaga aad u hagaajiso maxaad samaynaysaa waxaad samaynaysaa qaybtan edit-ka ayaad imaanaysaa kadib waxaa kuu soo baxaya optionna fara badan optionnadaasi ayaad ka dooranaysaa show balances for specified period marka qaybtan ayaad click leedahay kadib wuxuu ku siinayaa option goorma ayay accounting period-kaaga u bilowdaa qaybtan calaamadan calendarka ayaad ku dhufanaysaa kadib bisha ayaad kor tagaysaa click ayaad ka siinaysaa aan ka soo qaadnay inay bilaabato bilowga bisha 1 bisha 1 2022 ilaa maanta maya daa'iman waxaan niri waxa ay noqotaa period-ka yaa ima bil or quarter ama maxaa la dhihi jiray sanad ama half year marka aan dhahno sanad weeye custom intaan dhahno aan xadayno goorta ay dhammaanayso period-keena December ayuu dhammaadaa annagu waxaan warbixinada diyaarinaynaa tusaale ahaan sanad dhammaystiran kadib haddaad rabto in aad show balances on cash basis balanceyada haddaad rabto inuu ku tuso codeska account codeska hadduu rabo inuu ku tuso exclude zero balances haddii uu jiro xisaab zero in uu exclude ku sameeyo meesha ka saaro group to collapse
waxa aad rabto dhan ayaad dooranaysaa qaabka suitable-ka ah ee ganacsigaagu uu la xiriiro. cashirka maanta intaas ayaan ku joojinaynaa. Waxaan idinka filayaa dhammaantiin in aad softwarekan soo wada dejisataan kulligiin aadna bilowdaan ina settingkii aan samaynay aad wada fiirisaan oo aad set garaysaan sifo maalinta soo socoto aan wax u wada diiwaan gelino. Haddii aad u imaato intaynan dhamaystirin profit and loss periodka waan saxnay, wuxuu ka bilaabanayaa 1 bisha 1 ilaa 31 bisha 12. ka waran qof haddii uu rabo in uu detail ahaan softwarekan uu si isticmaalo, waxaan kula talin lahaa in uu website-ka ku laabto, kadibna horta softwarekan waxaa isticmaali karo noocyadii shirkadihii aan kasoo hadlaynay, shirkad hal qof leeyahay, shirkado partner ah, shirkado corporation ah, dadka oo dhan shirkadahaas oo dhan way isticmaali karaan. Marka sifa aad uga faa'iideysato ama aad u hesho dhammaan faa'iidooyinka featureska ku jiro, waxaan kugula talinayaa in aad tagto qaybta guides oo qaybtan ah, kadibna aad la soo degto PDF-kan oo ka hadlayo dhammaan qaabka loo isticmaalo softwarekan si detail ah ayuu uga hadlayaa. Ama meeshan qaybtan ayaad ka tegi kartaa oo ah first step, waxaad ka hadlaysaa qaabka loola soo dego, qaabta business loogu soo daro waan qaadanay, name, rename business, enter business detail, set base currency. waa wixii aan hadda qaadanaynay oo dhan waxa weeyaan ayaan meeshan ka heli kartaa, iyo cashirada soo socota aan qaadan doono sida chart of account. Marka haddii aad softwarekan aad soo dejisato kadib waa 500 pages, sawiraa u badan, waxba ha ka nixin. Marka qofka rabo in uu si fiican uga faa'iideysto softwarekan, ha akhriyo guide-kan ay soo publish gareeyeen qoladan managerka ee softwareka soo gudbiyey. khayr badan baan idin rajaynayaa. intaan videoga soo socdo ku kulmayno, waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.